شاحن قبل شرف لسيو شكيت بالآيات قبل شرف لسيو شكيت بالآيات حطت مرت الصاشرة سيدي كي شاحن قبل شرف لسيو شكيت بالآيات قبل شرف لسيو شكيت بالآيات روح لما الشريري افتين ملكش ذنبي شحني شحني مغادي ليسا أنا كون شفاني وروح لما الشريري افتين ملكش ذنبي شحني مغادي ليسا أنا كون شفاني daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii fanka iyo fanaanka ee aan maanta marti idigu hayno fanaanka weyn ee caanka ah Maxamed Cumar Jango. Ku soo dhawow Jango, shabakada warbaahinta calanka iyo TV-geeda iyo magaalada Oslo. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا horta waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo ama aan halka ka salaamo website-ka calanka oo ah calankii ummadda Soomaaliyeed oo kulligeed maaragtay ummadda Soomaaliyeed oo dhan xurmadeeda iyo sharafteeda tilmaamaya waad ku maasantahay soo dhaweynta aad soo dhaweyseen waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa fanka iyo suugaanta marka waa dhowahay jallaqsi aad baad u maasan waa tahay muxuu yahay ujeedka safarkaaga ee ku timid magaalada Oslo ujeedada aan ku imid halkan ama safarkaygan Oslo Norway waxay tahay waxaa casuumad ii soo fidiyey ama casuumad i casuumay dhallinyarada OYSU ee reer Ogaadeniya oo halkan ay sanad guuro ay u dabaaldegahayaan munaasabadaas ayaa ka soo qayb galay waxaa kale oo mataqaanaa aan halkan ku samaynaynaa aniga iyo fanaaniin kale xaflad bandhig faneedkaas oo la qabanayo 31 bishan March oo ku aadan maalinta Sabtida ah ee 31 bishan March fanaaniinta kale igula jirtana waxaa ka mid ah Cabdi Khaaliq Cabdi Hoolan Khadra iyo mataqaanaa dhalinyaro kale badan oo fanaaniina marka haddii ilaahay yidhaahdo barnaamijkaas waxaan jeclay in si fiican dadweynaha aanu raalli gelinoon ugu baashaali doono waa tahay waxay la tahay inay tahay safarkaagii kugu horreeyay aad timid magaalada Oslo sawir sidee kaaga muuqda maadaama ay tahay showgii kugu horreeyay Oslo ku qabanaysid sidee lagu soo dhaweeyay maxaad dareemaysaa magaalada Oslo weji noocee kaaga muuqda aad baa waa su'aal fiican aad baa maasantay horta aan ku siiyo mataqaanaa ogaa xog warrana Oslo markii igu horreysay ma aha marar badan ayaan Oslo imid iyadoo samara iyadoo wintera intaba waan imid runtii dad fiican oo aad asxaab u nahay ayaa jooga magaalada Oslo Norway aad baan la ii soo dhaweeyey si aad iyo aad u fiican markastana si fiican baa la ii soo dhaweeyaa asxaab badanna waan ku leeyahay marka aad baan u jeclahay magaalada Oslo waa tahay runtii waxaa caan ku tahay ama ummadda Soomaaliyeed ay kugu barteen dhanka heesaha hidaha iyo dhaqanka sida dhaantooyinka bal arrintaa bal wax yar inooga taabo runtii waa runta heesahan hidihi dhaqanku waa meesha fankeenna iyo suugaanteennu ka soo askumantay ay ka timid waana hees kasta oo hidihi dhaqanana waxaa laga ciyaaraa gobollada Soomaalida oo dhan iyo magaalooyinka oo dhan wayna ka duwan yihiin heesaha hidihi dhaqanku heesaha kale caadiga ah ee mataqaanaa la qaado ama la sameeyo waayo heesahan waxay ku fadhiyaan dhaqan iyo aas ummadu leedahay ayay ka soo jeedaan runtii taasaan u jeclahay waxaana jeclaanaa inaan maanta aan idiin soo qabto ama aan ku yar baashaallo heesta la yidhaahdo deeqaluula
دقيقة روح سنة دوديدي إن انتظر كلام وتهيدي أي واحد مطلنا دقيقة روح سنة